kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba oo aad dunida ka joogtaan waa barnaamijkii aynu kaga hadli jirnay aflaanta soo socda ee sanadka haatan aynu ku jirna la filayo inay soo baxaan. barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa KFG Chapter 2 waa filin India lagu sameeyay luqadda Canada ayuuna ku soo bixi doonaa. filinkaasi waxaa directorka Prashanti Nil waana qaybtii labaad ee filinkii la sameeyay 2018 ee KFG Chapter 1. haddaba filinkan waxaa atoraka actorka la magac baxay Yash isaga ayaana hogaaminaya waxaana uu noqon doonaa filinkii koowaad oo Yash actorka yahay actor ka soo jeeda dhanka Bollywood-kana oo dhanka laadariinta markaas uu hogaaminaya waana jilaaga aad wada garanaysaan Sanjay Dutt ayaa filinkan waxa uu ka yahay negative role. haddaba filinkan ayaa waxaa duubitaankiisa ay bilaabatay bishii March ee sanadka aynu soo dhaafnay 2019 waxaana la filayaa in uu dhawaan soo baxo. waxaana filinkaasi la sheegay in marka la dhameeyo lagu duubi doono luqadda Hindiga, Malayalamka, Tamil iyo Telugu oo lagu sii dayn doono. haddaba KFG Chapter 2 maxay tahay qisadiisu maxayse ku saabsan tahay? haddaba KFG Chapter 2 waxa ay ku saabsan tahay KFG Chapter 1 qaybtiisii labaad waxaana la filayaa in lagu duubo isla Bangalore buuraleyda loo yaqaano Kolar Goldfields oo ah halka dahabka laga qodo. waxaana duubitaanka halkaasi ay ka bilaabatay bishii Agosto ee sanadka aynu soo dhaafnay. sanadkii soo dhaafay bishii July ayaa Sanjay Dutt waxaa la xaqiijiyay inuu qayb ka noqon doono sanad guuradiisii 6aad 29 July ayuu Sanjay Dutt saxiixay in uu KFG Chapter 2 ka noqdo negative role. arrintaasi mar wax laga weydiiyay waxa uu sheegay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in KFG Chapter 2 lagu soo daro Sanjay Dutt waana shakhsi ka bixi kara characterka amaba markaasi qaabka loogu talagalay inuu laadarka filinka uu hogaamiyo. sidoo kale wararku waxa ay sheegayeen bilowgii in ay ku jirto actorada caankeed wada garanaysaan ee Raveena Tandon balse mararka qaar waxaa soo baxay warar sheegaya inaysan arrintaas jirin. ugu dambeyn Raveena Tandon waxay noqotay gabadha matali doonta ra'iisul wasaaraha dalkaasi India iyada ayaana markaasi doorkaasi la siiyay inkastoo wararka qaar ay sheegayeen in dadka filinka iskale ay u rabaan gabadha lagu magacaabo Saran Shakti oo ah gabar reer Tamil hay'ashee Raveena Tandon ayaa ku guuleysatay doorkaasi inkastoo wali luqadda Ingiriiska aan la isla meel dhigin inay ku duubaan iyo in kale. actorada filinka qaybta ka waa Yash waa Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Sunita Shetty, Ananta Nagan, Malavika Vinash, Sarana Shakti, Ayushita Kumar, Vasanthi Simba, sidoo kale Ramachandra Raju ayaa ku jira iyo Raw Ramesh. haddaba waxaynu sugnaaba waa waqtiga uu soo baxo KFG Chapter 2 saad wada ogtihiin KFG Chapter 1 waxa uu ahaa filim blockbuster sheekadiisana lala dhacay taasina waxay sababtay in sheekada filinka la sii furo. haddaba daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijka koobnaa aynu kaga hadlaynay aflaanta cusub ee fududaynu ku soo haya intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa halkaad ka daawanaysaan waa channelkiinii in la wadaagi jiray barnaamijyada ugu xiisaha badan iyo aflaanta cusub ee inugu soo fodle. daawada haddaadan hore uga mideen asxaabta ku xiran channelka isku day inaad subscribe qaac ku siisid gambalelka aad furatid si barnaamijyada markii hawada soo galaan bay si toos ah kuugu soo dhacaan. anigoo caaqilna waxaan idinkaga tegayaa